طب أنا نربطني سمعنا abtooy waayo oo ku dhaha hooyadaa maa la cabaane laxda ku dhashoos balwaddu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofku marka uu isticmaalo uusan naftiisa xakamayn karin. hase yeeshee daawade, waxaan barnaamijkan idinkula wadaagi doonaa muuqaalo sir ah kuwaas oo laga dubay fanaanka Sharma Boy, kaas oo ku sugan xaalad sakhraan ah. haddaba maxay arrintaasi ka tarjumaysaa? maxayse tahay sababta ay heesihiisu kaga duwan yihiin heesaha kale ee caadiga ah ee la dhageysto, taasoo had iyo jeer sababto ama aynu ku aragno baraha bulshada dhalinyarta iska duuba muuqaalada oo adeegsada heesaha Sharma Boy in ay ka akhlaaqya duwan yihiin kuwa kale ee iska soo duuba heesaha kale. haddaba waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa saamaynta rasmiga ah ee arrintaasi ku saabsan. sidoo kale muxuu balwad ahaan isticmaalaa fanaanka Sharma Boy, iyana waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalo sir ah oo arrintaasi laga duubay. waxaa hubaal ah haddii aad barnaamijkan dhagaysato aad dhammaystirato in xogo badan oo kaa qarsanaa aad heli doonto. hase yeeshee daawade, inta aanan kula wadaagin fadlan muuqaalka leeg saar, maxaa yeelay leegtu waxay noo tahay dhiirigelin iyo dardar iyo in aynu maalin walba idiin soo sameyno muuqaalo cusub. sidoo kale nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta sida maalinlaha ah noogu xiran. haddaba daawadayaal, sida aan wada ogsoonahay maalmihii ugu dambeeyay waxaa baraha bulshada qabsaday fanaan lagu magacaabo Sharma Boy. fanaankan ayaa bilowgiisii ka soo caan baxay bar lagu magacaabo TikTok, isagoo inta badan heesihiisa ay adeegsan jireen dhalinyaradu iyagoo markaas iska soo duuba muuqaalo qaab jiliin ah iyagoo adeegsanaya heesihiisa. hase yeeshee daawade, waxay muddo sanada arrintaasi soo socoto. waxaa maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday kadib imtixaankii dowladda in arrintaasi uu sabab u ahaa Sharma Boy. hase yeeshee daawade, halkan waxaan idinkula wadaagi doonaa barnaamij waxaasoo idilka duwan. waa nolosha dhabta ah ee fanaanka Sharma Boy. muxuu balwad ahaan isticmaalaa? inta aan idinla wadaagin saamaynta ay ku yeelan karto heesihiisa iyo dhalinyarada dhageysata, bal marka hore aynu kilibkan isla dhageysano. zakiyare anaa ku cunaade hore i gadaalbo maxaad samayn kartaa baraada abtooy waayo oo ku dhaha hooyadaa maa la cabaane laxda ku dhashoos waxaan fiirinayo wixii buuq wada faraam intaneho. Sharma Boy, muuqaalkan waa Sharma Boy oo leef ku jira. dadweynihii daawanaya ayaa u sheegay inuu cabsan yahay. hase yeeshee sida caadada u ahayd dadka sakhraansan ayuu ugu dhaqaaqay aflagaada iyo inuu jaa-ifeeyo, isagoo gaaray xitaa hooyooyinkooda, taasoo ka dhigan xitaa inuusan naftiisa xakamayn karin awoodda balwadeed oo isticmaala darteed. haddaba inta uu muuqaalkan sii socdo, shakhsi ka mid dadka la joogay ayaa u sheegaya fanaanka inuu isdejiyo maadaama uu yahay qof shacbiyad leh, arrintaana uu ka xishoodo. hase yeeshee muxuu ugu bedeli doonaa? bal ila daawo. والشعب والسلام يا وحي بوق انت فرام انت برادا انت بعدين ما هنا هذا لايف كان يقول جستا ما يقول جست كم كذا ساعه dadka ayaga u taalay ikhriina anaa ku wasaadi. waxaa muuqata oo cad in wiilkani uu ku sugan yahay xaalad kale oo sakhraan ah, naftiisana uusan awood u lahayn inuu xakameeyo. hase yeeshee daawade, fanaankani maxay yihiin heesihiisa? halkee ayaa laga soo minguuriyaa? yuu fanaankani ku daysadaa? maxayse tahay dhaqamada had iyo jeer uu soo koobiyeeyo kuwaasoo dhalinyarada Soomaaliyeed la wadaago? haddaba waa kan fanaanka Sharma Boy oo mar kale sharaxaya cidda ay yihiin abwaaniintiisu iyo dadka uu ku daysado. adiga funka waa kala garanaysaa ma funka aad waa kala garanaya maxaa u baahan maya walaal waxa ka walaaya aniga abwaanadooda waa Finlander Ingiriis Tanzania iyo wixii kala badan yihiin. waxa uu tilmaamayaa abwaaniin aanan magacyadooda garanin, hase yeeshee waxaan qiyaasayaa inay ka soo jeedaan wadamada Tanzania, Nigeria iyo sidoo kale Kenya. haddaba daawadayaal, heesihiisa inta ugu badan waxa uu ka soo koobigareeyaa fanaaniintaas, isagoo ka bedela erayadii saarnaa ayuu isticmaalaa laxankii iyo muusigoodii, sidaas ayayna heesiisa ku soo baxdaa. hase yeeshee arrinta jirta ayaa ah in fanaankani marka uu heesaha sameynayo uu ku jiro xaalad sakhraasan, taasoo ah mid aad u kacsan, waxayna heesihiisa ka dhigtaa kuwo wata xamaasad oo marka uu qofku dhageysanayo xitaa uu ka baxayo xaaladda caadiga ah. waxyaabaha uu sameynayana xitaa uusan kontarooli karin. waxaana taas caddayn ugu filan in dhalinyarada ugu badan ee iska soo duubay heesaha Sharma Boy ay yihiin kuwa akhlaaqyaad daran,
haddii ay noqon lahaayeen gabdho iyo haddii ay noqon lahaayeen wiilal. taasina uma baahna sharaxaad badan ee haddii aad u baahan tahay inaad aragto fadlan TikTok booqo. sidoo kale waxaan idinla wadaagayaa muuqaal dhalinyaro sharaxayso qaabka uu Sharma Boy u tarabiyeeyo iyo waxyaabaha iyaga uu baro. bal waa kane ila daawada. ciyaarkayga Sharma Boy ardayda rid macallin iskool miya may aaba macallin madadaalo ay waayahay muxuu dadka baraa badaad barat islo lambarkeeda ka qaado adiga islureen leebkii ulugee xafadeeda dharka ugu shidan carwada soo xiro dhala barfuun dhaqso isku jabi isku joog jeeni soo qaado dalbiyeeri tagti maa soo agaas nambarada laga qaadanayo xagee ku arkaysay marka wadada iska taagan yihiin wadada dabka marta degmada agteeda rabta dukaanka seegisha caleenta shaaxay soo gada gabdhaas wiilal la dhasheena inay idin arkaan baga ayda ka garaacaan dagaalka taa waa nolol bar anaga hadoo isoo waalwaalo cub ku xir ka cabaaji hadduu cabaadana sii ceeji nin dhamo jaamacad ka qalin jibiyo shahaado heestaa tahay maxaa kugu kalifay dan ku shaqo ma leh haloo yeelo dhalintu shiiday maana la shuufo jeeb ku shilin ma leh haloo buuxsho shahaadadu macno ma leh. waxaan rajaynayaa inaad daawatay muuqaalkan xog badanna aad ka heshay. heesihiisa ayaa inta ugu badan waxa ay yihiin kuwa dhalinyarada u abuurta jawi ka duwan heesaha kale. taasina waxa ay sababtaa in dhalinyaradu ay dhageystaan maadaama uu abuuro jawi qiyaali ah. haddaba daawadayaal Sharma Boy inta badan waxaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay ardadu in ay imtixaanka ku dhacaan. hase yeeshee maaha inuu arrintaasi ka dambeeyay balse waa ay jirtaa saameyn uu ku leeyahay maadaama aad arkayso arday badan oo uniform ka wadata kuwaas oo iska soo duubaya heesihiisa. haddaba waxaan rajay doonaa in fanaanka ay fariintaani u noqoto mid cad uuna wax ka bedelo habsoo saarkiisa heesaha cusub uuna ku daro dhaqamadii Soomaaliyeed iyo sidoo kale fankii hore ee Soomaalida isagoo ku daysanaya fanaaniintii hobalada waabari iyo kuwii kale qiimaha badnaa ee la midka ahaa.